waxaana ma arkaysa macnihii aynan ogeyn khasaaraha dhabta ceelasho dhan oo laga ogyahay magaalada muqdishona banaanbax lagu taageerayo waxa lagu sheegay dagaalka ka dhanka argixisada oo xasan uu soo abaabulay tiktoklaydiisi iyo ma arkaysa kuwii tiimkiisii ayaa niika ka socota ku soco maxamed farax waxa weeyaan maxaa isku soo beegay geerida General Sheegow iyo showga Banaadir caawa lagu qabtay maxaa isku soo beegay waxa weeyaan way caddahay showna xamar baa lagu mashquuliyay ilaan dadkii waxa diin looga dhigay social media 24 saacadoodba inaynu live ahaano xaggana waa inaga gumaadaya xaggana showgu inoo dhigaya horta General Sheegow ma tareer weyn baa laga dilay Mahmoud Farax waxyaalo ku jira waxaan rabay ku jir dhageystayaal daawadayaal muuqaal waxaana la wadaagay General Sheegow markii ugu dambeysay ee nafta ay ka sii baxaysay ayaana la wadaagay markayse maracad ayaa dusha ka saaran isla markaasna afkiisi ayaa la isku dayayaa in la isku qabqabto markay nafta ka sii baxaysay muuqaalka sidaan ayuu u dhigan yahay markayse macnii wad arki kartaan markay macnii jananka nafta ay ka baxaysay sida muuqaalkana la soo wadaagay macnii markay nafta ka sii baxaysay faashad baa macnii caloosha agteedana ka saaran sidaad u jeedaan hugu fara badan baa ka yeelay marka arrinkan markayse muuqaalkan oo muuqaal qarracan leh marka insha Allah taala markayse naf walba geeridu way dhamin Maxamed Farax ku sii soco insha Allah laba saac ka hor sagaalkii markay ahayd baan ku soo diray balse ileen lambarkaagii hore de waa kii gubtay lambarkaagii hore kuugu soo diray 2 saac 9 saac 3 saac markay sagaalkii markay ahayd baan ku soo diray waxa weeyaan maanta qof kasto Soomaali ah oo damiir leh oo Islaam ah ayay tani danqaysaa jareer weyne lagama dilin caruurtiisii lagama dilin aba Soomaaliyeed General Soomaaliyeed shaati qaranka huwan haybadii dalka huwan ayaa la dilay waxa la dilay sidii loo dilay Haabiil uu Qaabiil u dilay siduu Netanyahu u gumaadayo caruurta Gaza iyo Yemen iyo Lubnaan iyo Suuriya weeyaan kaasi xamarna waxa iyo koonfurta Soomaaliyana waxa gumaadaya Netanyahu-gii bariga Afrika hukumihii geedibaabow saaxirkii ahaa uu ku aastay weeyaan Xasan abgaal buunan ahayn Ali Gaaf buunan ahayn Soomaali buunan ahayn 2001dii ayaa wuxuu qaatay madhabta Freemasonka sanadkan bishii koobaadna xafladii loogu dhigayay Switzerland markii 200 something milyan laga dhacayay waxay ahayd 25 guuradiisii caawa tala waxay u taalaa mujtamaca Soomaaliyeed intii dhimatay way dhimatay waxaana dilay yuhuud baa leynaysa balse caawa tala waxay u taalaa General Sheegow ma ku joojidnaa oo kacdoon shacab ma la heli karaa haddii jareer weyne la eedaynayo Luul Cabdi Casiis ayuu mujtamaca Soomaaliga ah oo dhan ka kacay caalamkuna ka kacay ilaa haddana ninkii dilay shaqo loo diray oo madaxtooyadu u dirtay buu qabtay waa ka xabsiga ku moolaysanaya يعني waxaana la sameeyaa habeen kasta markii dhagar la diyaariyo ee dhagartaasi la qarxiyo ayaa tu kala la furaa si aan loo kala gurin waxay caawa taagan tahay wax lagu soo afjari karo 12 saacadood oo berri toona ah iyadoo oo wixii dhimanayay uu shahiid yahay waayo dalkaaga iyo dadkaaga iyo diintaada iyo cirdigaaga iyo inaad waxaaga dhimatay waa shay waajib ah oo diini ah inkastoo wadaad maalin dhaweyd wahaabihi uu lahaa askartu hadday salaada ka tagaan waa shuhado been buu sheegay
salaatul khawf ayaa la soo dejiyey gaalada iyo rasuulkii iyo saxaabadii oo gaalada la dagaalamaya ayaa salaadii duhur markay tukanayeen ayaa gaaladii waxay ku nidaamootay war intay tukanayeen maxaan u weerari weynay markaasaa wuxuu mid kale wuxuu yidhi tii ay ugu jeclaayeen oo salaada dhexa ah oo salaatul casri ah baa soo dhow taasaynu ka dilaynaa malakul jibriil iyo ilaahay baa ku soo dejiyey aayadaha ku jira suuratul nisa ee salaatul khawf la yiraahdo sida loo tukanayana la baray yacni nabi maxamed iyo saxaabadii rasuulka oo uu shaahid yahay oo dagaal ku jira oo salaadii duhur tukaday salaada casar markii loo dhigay dhagarta waxyiga la soo dejiyey miyaa la rafciyey baan weydiinayaa wadaadkii muxuu ahaayay sheekh maxamed idris waxa weeyaan la jiifiyaana bannaan la joojiyaana bannaan diintu ma aha waa xukun sharci ah oo samada ka soo degay salaada nabiyullaahi maxamed baa fawqa sabca samaawaad loo geeyey ilaa iyo nabiyullaahi aadam iyo ilaa iyo nabiyullaahi ciise ayuu baytul maqdis ku tujiyey maxaa keenay askartu hadday salaada ka tagto oo aynan tukanin waa shuhado man taraka salaad faqad kafara weeyaan jihaadka iyo salaada la hor faral yeelay waxaa la joogay caamul xusni makaa la joogay jihaadkoon la faral yeelin baa salaada la faral yeelay salaadii u horreysay ee jamaaca ahaydna aroortii ay nabiga iyo abibakar ka baxayeen godkii qaaro xidha ayay salaadii subax yu nabigu imaamka ahaa abibakarna uu maamuum ahaa awwalu salaatul fardi oo jamaaca taasay ahayd jihaadkina wuxuu bilaabmay sanadii labaad ee hijriyada yawmul badr 17 ramadaan bay ahayd nabiga iyo saxaabadu miyay afurnaayeen soonka miyay ka tageen mise way soomanaayeen maka markii la furanayay nabigu iyo saxaabadu may afurnaayeen baytul maqdis markii la furanayay saxaabadu may afurnaanayd Qustandiniya markii la furanayay ramadaan bay ahayd andalus markii la furanayay ramadaan bay ahayd 11 futuuxaad oo ay yawmul badr ugu horeysay iyo ilaa iyo andalus iyo kuwa ka dambeeyay oo futuuxaadka caalamiga ah la yiraahdo oo Makka ku xigtay 11 kaasiba waxay dhaceeyo bisha ramadaan yacni waxa wax lala yaaba iyadoo geeri qaran ay taalo oo calanka dalka in maanta caawa hoos loo dhiga ahayd showga iyo dabaaldega socda waxa weeyaan ninku dilay hadhkuuma jiido weeyaan waxa wax lala yaaba haddaan xumaantii iyo wanaagii la kala garanayn haddaan musaylamatul kadaab iyo mu'minkii la kala garanaynin iyadoo la weerarin oo dhuusamareeb uu joogo ayaa waxaad noo sheegtay in generaal sheegow la weerarayo lana dilayo usbuuc mise 3 beri adiga wax usbuuc ugu badnaan ama ka yar markaad noo sheegtay ayaa la weeraray showtada waa tii la hayay waa tii fagaaraha lagu waxaynayay generaal aadan gabiyow oo wasiirkii difaaca ahaa ayaa waxaan u soo joognay xamar in gurigiisa lagu weeraray dawladdii kacaankii markii la soo qabtay madambasbaa madaxa loo geliyey miyaa la waxeeyey wax la yidhaahdo madaxda walow kaana kabtanna ha ahaado sarkaal hadduu yahay house arrested baa laga dhigaa waxa sida loo dhaqmayahay yacni dee waxa socdo oo dhan baan waxaynan ahayn qawaaniin Soomaaliyeed iyo qawaaniin dawladeed iyo qawaaniin islaam midna ma aha mujtamaciina waxay noqdeen dee wixii la sixray yacni waxaa jirta yuhuudu hawl ma dhaqaajiso ilaa lo'dii suuratul baqara ayay gowracdaa waana taynu ogeyn dee xamar in lo'dii guduudnayd haddii xamar wadooyinkeeda lagu gowracayay mujtamaca Soomaaliyeed oo dhan baa sixran culimadaa sixran
salaadiintaa sixran shacabkaa sixran dumarkaa sixran waxaasoo dhan baa sixran 328 filla Hargeysa aadan madoobi iyo cabdi xaashi iyo firmi fisqi ay horjoogaha ka yihiin ayaa wax kasta oo uu xasan sameeyo mas'uulka ah waayo ayaga dalka u dhiibay shaqadii uu u diray baynan hayaan samaca Soomaaliyeedow xasan waxa ka shar badan filla Hargeysada banaadir ayaa ka shar badan baarlamaanka ka shar badan waaba ciyaal weero iyagaaba u baahan in la heshiisiyo midda kale ciidamada hal la isbaraa la yiri ciidamada maxaa la isbari xildhibaanadu isma yaqaanaan kuwa waa Kenya kuni waa Mareykan kuwa waa Norway kuwa waa maxay kuwa waa kaas isku diin ma aha isku dad ma aha isku luqad ma aha isku af ma aha gibigoodu waa ciyaal weero marka waxa wax lala yaaba nidaamka dawligu ma dhagarba 24 saacadoodba wax ibn aadamnimada iyo islaamnimada iyo Soomaalinimada iyo dawladnimada qaran jab ku ah maxaa loo qarxinayaa shacabkuna maxay u aaminsan yihiin midda kale wadan kasta marka afgambi lagu samaynayo caasimada ayaa wax laga afgambiyaa Soomaali oo dhani waxa ay dhibana u tahay banaadirna waxay dhibana u tahay yeedii ilma 1991 iyagaana iscunaya cid kastana way cunayaan hadduu xasan tareernimo u dilay generaal sheegow kii daraad la dilay sawaab gaal ma ahayn soo sheegayna adeerkii ma ahayn soo isku hayb maynan ahayn waxa dhintay haddii Soomaali laga qiyaas qaato soo boqolkiiba inta ma midda kale Xamza safarkiisa ayaa tan halka idhaahdo Somaliland way arag gelinaysaa laakiin door uma laha laakiin safarka Xamza muxuu ku qotomaa 6 February colaadii qaraxday ilaa iyo gooja cadde 25 August ayaa shidaal horle lagu shubayaa oo la cusboonaysiinayaa dhagartu xagay ka imanaysaa kow waxa la kala dilayaa SSC oo la kala jabinayaa laba walaalahoodii Puntland ahaa ee derbiga ahaa ee ku tiirsanaayeen iyo iyaga la kala dilayaa saddex wadajirka daaroodnimada ayaa iyadana lagu burburinayaa laakiin Somaliland waxba ugama taalo oo waxa weeyaan Somaliland ogolaanshaha SSC bay ku joogtay laascaana iyo Sool waxa ogeedeenna uu ka dhacay marka waxa weeyaan SSC nuclear baa lagu soo riday bomb baa lagu soo dhiibay Xamse inuu isagoo ra'iisul wasaare meesha tago iyo isleedihiin ku dalaca hadduu raas Kamboni iyo afmadow iyo badhaadhe iyo dhobley oo meelihii kursiga ka soo qaatay uu wanted ka yahay maamulkii Jubbaland uu wanted ka yahay gedadii Jubbaland ayuu wanted ka yahay abid waaqi iyo maamulka daarood halka jooga uu wanted ka yahay Puntland oo iyada lagu xumaynayana uunan tagi karin sababta aad idinku isugu farafiiqaysaan waxay idin tahay inaad siyaasadda il duufaysaan hal kula talinayaa waxgaradka SSC Xamza waxaad ku tiraadaan marka hore afmadow tag oo dhobley tag oo xaya tag oo taabta tag oo deegaanka reexirsi afmadow kursiga afmadow buu ka soo qaatay waa nin reexirsi oo ay isku hayb yihiin Axmed Madoobe 6 bay kala tirsadaan odayga 8 7 baa ka dhaxeeya labaduba aanay abtiyada yihiin waa ka arkaysay ee uu ka raali gelinayay Soomaali Axmed Madoobe waa ninkii raas Kamboni weeraray
marka waxa loo dirayaa maadaama oo Mareykanku uu yiri maadaanu ku warsanaynaa berberi iyo boosaaso si xooshna la yiraahdo garowe isku soo sawir xamzana la yiraahdo isku soo sawir lascaano si aanu ugula daarano guusha Puntland waa intaas iyo kala jebinta daarood haddaan maanta reer kasta oo Soomaaliyeed gaarkiisa loo soo bidaynin oo harti aynan gaar u midoobin oo daarooduna gaar u midoobin oo ina raxan weyn gaar u midoobin una hawiye gaar u midoobin oo ina dir gaar u midoobin oo inan dadka Soomaaliyeed ee sharafta badan ee tacabka iyo xooga iyo qiyamka dalka u joogana aan dhibaatada laga deynin diinta islaamkana loo soo noqonin lana toobad keenin wallahi ya billahi ya tallahi meyd nool oo badan baynu nahay kuwa 24 saacadood ee soo socota ama 48 saacadood ee soo socota ama 72 saacadood soo socota kuwa aan ka liidanin General Sheego ayay dilayaan marka waxaad moodaa Azraa'ilkii marba qof la tagayay inta kalena xataa idaa balagatil xulqum ay markay tahay dadkuna ay eega waxina tanduruun amal bay Soomaali oo dhan noqotay 24 saacadood ba waxa la fuliyaa dhagar tan oo kala ah 48 saacadood ee hadda ka horeysay tan waxay ahayd generaalkii sida cad loo dilay sidiisaba maxaa General Sheego loo dilay General Sheego waxa loo dilay maadaama uu yahay generaalka koobaad ee ay leedahay beesha jareer weyne ee dhulka webiyada oo dhan degta ilaa iyo webiga Shabeelle oo dhan halkuu Itoobiya ka galo halka uu Juba iyo webiyadan saddexda ah ay dawlad deegaanka Soomaalida ka galaan webigan Kenya halka uu Mandheera iyo ilaa iyo Mooyaale ka galo ummadda degta Ilaahay arrintii ugu horeysay nabiyullaahi Aadam markuu Ilaahay arlada keenay wixii ugu horeeyay nabiyullaahi Aadam uu qabto waxay ahayd malakul Jibriil baa wuxuu u keenay 7 xabo oo midhaha sareenka ah marka beer baa lagu yiri oo malakul Jibriil baa macallin ugu ahaa dabadeetana wuu beeray labadii wiil ee ilmo nabi aadanna Haabiilkii la dilayna wuxuu ahaa ninkii qurbaankiisii la aqbalay kii shaydaanka ahaa ee Qaabiil ahaana kii qurbaankiisii la aqbali waayay buu ahaa General Sheego marka waxa lagu yiri waxa tahay annaga oo abgaal ah iyo idinkoo jareer weyne ah Salmanaas dheer baa ina dhashay isku hooyeen abtigaya tihiin haddana dhulka webiyada beled weyne oo beesha xawaadlo oo markaa lala dagaalamayay iyo Shabeellaha dhexe Shabeellaha hoose ilaa iyo Bay iyo Boqol iyo ilaa iyo Gedi iyo ilaa iyo Jubbada hoose ayaa waxa lagu yiri waxaad qaadataan arrintii salbalaarayntii ahayd martiira hilaab iyo mooga hiraab iyo maqana hiraab iyo xaskul hawiye iyo niman xaskul hawiye abaatihiin marka beledweyne iyo hogaamintii Cali Saytana la dagaalan lafta gareen iyo ma digliya midifna Shabeellaha hoose kula dagaalan iyo ilaa iyo Gedi iyo ilaa iyo dhulka dabadeetana qorshihii baa u cuntami waayay sidan haddaba Masar ay ugu cuntami laadahay Falastiin waan soo qixinaynaa ee qaat Abdul Fattah al-Sisi uu ilaa haddaba u diidan yahay martiqaadkii uu Trump u fidiyay fi taariikh inta aynu hubno
madaxweyne Maraykana oo madaxweyne caalamul carab ah intuu martiqaad u fidiyo diiday oo tagi waayay buu noqday waxaana ku diiday kii ka horeeyay Urdun sidii loo bahdilay iyo kii Ukraine marka General Sheegow markuu arrintii diiday ayaa waxay noqotay in la yiraahdo ama sirtiibu fashilin ama ubayna diiday isaga aan dilo oo maxaa loo dili waxa weeyaan naagtaada oo ciir xagaa ka qadisay ana og baa loo dilaa waxa weeyaan 1991kii ilaa iyo maanta xamar wixii dadka ku leynayay xasan buu ahaa waynu ognahay oo Soomaali way wada ogtahay inuu khadkii cagaarnaa ninkii xamar dhigay ahaa ninkii manifesto ahaa inuu yahay